Hallow, kani waa safarkeennii koowaad, waana midkii dhalinyaro badan oo caajis iyo hurdo badani ka reebtay asaagood ay indhaha ku kala qaadi doonaan kuna ogaan doonaan meesha ay dunida ka joogaan. Muuqaalkani markuu ku soo gaaro, waxaan filayaa inay ku soo gaartay farriin kaaga timid walaalkaa Saki Cabdi oo kula jecel khayr iyo horumar inaad dunidan ka gaarto. Subaxii alla keeno oo aad indhaha kala furto, waxaa ku soo gaara akhbaar kaaga timid dunida meesha ugu dambayso. Farriimuhu way kala duwan yihiin. mid markay dhagahaada ku soo dhacdo qalbigaaga wuxuu dareemayaa farxad, midna kuuma roona inaad maqasho. Koonkan Ilaahay wuxuu bini'aadamka u keenay inuu ku imtixaamo. Qof walba oo dunidan jooga ma ahan mid aysan murugo iyo caloolxumo soo marin. Qof walba maalin iyo in ka badan ayuu dhadhamiyaa. Annagu waxaan nahay Muslim aaminsan qadarta Ilaahay inay wax walba ku dhacaan. Waxaana la rabaa inaana iloobin aakhiradeenna adduunkana uga tagno raad wanaagsan oo ay dad badani naga dhexlaan. Adduunkan waxaa la isku dhaafay adkaysi iyo u shaqaynta si adag. Dadka qaarkiis markay noloshooda ku dhacdo wax yaroo dhibaataa, way isdhiibaan oo way isbahdilaan. Waxayna aaminaan inaysan waxba qabsan karin, halka dadka qaar ee dunida ku nool ay ka tillaabsadeen caqabadihii soo maray noloshooda. Taasina ay ka dhigtay maanta dadka dunida ugu taajirsan, uguna kalsoonida badan. Silsiladan dhiirigelinta ah waxaan ku soo qaadan doonaa cutubkeenna koowaad, ninka ugu taajirsan dunidan aan maanta nool nahay, una dhashay dalkaasi Maraykanka, magaciisana la yidhaahdo Jeff Bezos. Bezos waa nin aad u kalsooni badan, noloshiisana ka soo saaray dhiiqadii faqiirnimada iyo daruufaha nolosha. Inta aanan gudaha u gelin mawduuceenna, waxaan ka codsanayaa qof walboo fiidiyowgan daawanaya ama channelkan arkay inaad nagu soo dhiirigeliso subscribe, hoosna noogu reebto wixii aragtidaada ah, fiidiyowgana like iyo share iskugu darto si uu u faafo channelkan aad ka faa'iidi doonto waxyaalo fara badan. Mahadsanid walaal. Waxay ka horreeyay shagaashameeyadii ma jirin wax technology heer sare ah oo ay dadka dunida ku nool ku adeegtaan iyagoo guryahooda jooga. Maantana waxay maraysaa in alaabtaada lagugu keeno meel walba oo dunidan aad ka joogto. Ragga suurtageliyay mashruucan hadda dunida lagu taajiray waxaa ka mid ah Jeff Bezos oo ah aasaasaha website-ka caanka ee Amazon, kaasoo ah website wax lagu kala iibsado qaab online ah. Jeff Bezos oo ah aasaasaha website-kan ayaa wuxuu ku dhashay gobolka New Mexico ee carrigaasi Maraykanka sanadku markuu ahaa 1964. Hooyadiis iyo aabihiis waxay ahaayeen kuwo isku guursaday yaraan, laakiin nasiib xumo, Jeff hooyadiis iyo aabihiis waxay kala tageen isagoo aad u daayar. Guurkoodiina ma noqon mid raaga. Hooyadiisna waxay guursatay durbadiiba nin kale oo ka soo haajiray dalkaasi Colombia oo ahaa petroleum engineering. Jeff ayaa ku soo koray dhexda hooyadiis iyo nin kaloo qaba. 1986 ayuu Jeff ka qalin jebiyay Princeton University isagoo bartay cilmiga electric engineering. Jeff Bezos wuxuu 1994 ka shaqayn jiray shirkad la oran jiray DE Show oo ahayd shirkaddii ugu weynayd carrigaas Maraykanka ee gobolka California. Jeff Bezos ayaa ka tegay shaqadii uu ka hayay shirkaddaas isagoo qalbigiisa iyo hamigiisa ka gooyay inuu qof bini'aadana u shaqeeyo. Wuxuuna doorbiday Jeff Bezos inuu maalin cad ka dhaqaaqo shaqadaas oo ay dad badani ku riyoon jireen inay u shaqeeyaan shirkaddaas DE Show la yidhaahdo. Dunidan waxaa jirto qaacido ah haddii aad qof kula mid ah u shaqaynayso inaad weligaa noloshaada horumar ka gaarayn. Taasina waxaad ogaanaysaa markaad soo baarto liiska dadka dunida ugu taajirsan waqti xaadirkan. Ma jiro qof shaqaale ku noqday taajir. Waxaa taajir lagu noqdaa waxaad adigu abuurato, mashaariic aad adigu aas-aastay ayaa taajirnimo iyo horumar lagu gaaraa. Jeff Bezosna wuxuu garowsaday in haddii uu weligiis halkaas ka shaqeeyo uusan weligiis dhaafayn kursigaas uu ku fadhiyo, halkaasna uu ku sugaayo mushaarka yaroo markay bishu dhammaato loo soo tuurayo. Balse haddii uu ka kaco fadhiga noloshiisana u samaysto mashaariic u gaara, uu nolosha horumar ka gaarayo. Dhammaadkii 1994 ayuu Jeff Bezos safar dhulka ah uga soo tegay magaalada New York isagoo u soo hayaamay dhankaas iyo magaalada Seattle, isagoo halkaas ku aasaasay website-kan caalamiga ah ee Amazon, isagoo ka bilaabay dukaan lagu iibiyo buugaagta, isagoo marba marka ka sii dambaysa sii ballaarinaya adeegiisa suuqa internetka. Waagaasna dadku si fiican uma aaminsaneen adeegan online shopping, wayna adkayd inay dadku ku aaminaan. Laakiin taas waxaa ka weynaa hamigii iyo yoolkii uu lahaa Jeff Bezos. Maalinba maalinta ka dambaysa ayuu adkaysi muujinayay si uu u gaaro hadafkiisa. Jeff Bezos wuxuu yaraantiisii xiisayn jiray kuna riyoon jiray inuu maalin maalmaha ka mid ah uu maal gashto shirkadda Blue Origin ee dayax-gacmeedyada u dirta hawada sare. Sanadku markuu ahaa 2000 ayuu maal gashtay Jeff Bezos shirkadda Blue Origin iyadoo ku guulaysatay socdaalkeedii ugu horreeyay kadib markuu maal gashtay Jeff Bezos.
wixii ka dambeeyay 2000 ilaa maanta waxaa sii faafaya suuqii uu aas-aasay Jeff Bezos ee Amazon iyadoo ah suuqa koobaad ee caalamka maanta loogu iibsiga badan yahay xagga isdhaafsiga badeecada qaab online ah. sidoo kale wuxuu iibsaday sanadku markuu ahaa 2013 wargeyska ugu weyn dalkaas Mareykanka ee magaciisa la yiraahdo Washington Post. wargeyskan ayaa wuxuu yahay warbaahinta ugu weyn ee ka hadasha siyaasadda qaaska ah ee Mareykanka, xarunteeduna tahay magaalada Washington ee caasimadda waddankaasi Mareykanka, isagoo ku iibsaday qiimo gaaraya 250 bilyan. intaasi kuma eka ninkani ee wuxuu xukumaa ganacsiyo kale oo fara badan isagoo u maraya lacagtiisa. 27 July ee sanadkii 2017 ayaa wuxuu noqday Jeff Bezos ninka ugu taajirsan dunida, isagoo ay markaas hantidiisu gaaraysay 90 bilyan oo dollarka Mareykanka ah, isagoo booska kala baxay waqti xaadirkaas ninka la yiraahdo Bill Gates oo isla waddankan Mareykanka u dhashay, kaasoo soo hayay muddo aad u fara badan. Jeff Bezos maanta hantidiisu waxay gaaraysaa 137 bilyan oo dollarka Mareykanka ah. ogowna in Jeff Bezos uu ka bilaabay mashruucan lacag ay hooyadiis soo siisay oo gaaraysa 300,000 oo dollar, isagoo la yimid gobolka Washington. lacagtaas halkaasna ka soo bilaabay safarkiisii milyaneernimada. waxaad maqashaa dadka guulaha gaara inaysan meel sare ka soo bilaabin ganacsigooda. sidaas si la mida Jeff Bezos wuxuu ku aas-aasay shirkadiisa Amazon geerish ku yaalay gurigii uu ka deganaa magaalada Bellevue ee gobolka Washington. walaal, halkan ha isku qaldin Washington, gobol ka mida Mareykankana waa la yiraahdaa, caasimadda kaliya lama dhaho Washington. nin ka soo bilaabay geerish ganacsigiisa ayaa maanta ah ninka ugu taajirsan dunida, waana midaas hadafka aan ka leenahay sheekadan. sababtoo ah dad badan ayaa waxay aaminsan yihiin haddii aanan laga bilaabin ganacsiga meel sare inuusan wax natiijo ah gaarayn, laakiin taasi ma ahan xaqiiqda jirta ee runta ayaa waxay tahay wixii meel hoose laga bilaabo laguna dhabar adeego ayaa guul iyo barwaaqo laga gaaraa. walaal, ku kalsoonow naftaada, inta ay 6 lexaad oo hodanka kuu dhammaystiran yihiin wax walba waad qabsan kartaa. sheekadaanna kuguma soo gudbin inaad iska daawato oo keliya, balse waxaan rabaa inaad kala baxdo nuxurka iyo qisada ku jirto, kuna dabaqdi noloshaada si aad guul u xaqiijiso dunidaanna magac iyo maamuus uga tagti. weligaa ha isdhiibin. waa walaalkiin Saki Cabdi Yaasiin oo mar kale idin dhahayo guul iyo gobonimo ku noolaada. janaalkaanna ku soo biir si ay kuu soo gaaraan muuqaalada dambe ee soo socdo. mahadsanid.